وحنا ذو ليابي وحلا ويديي وزير كمالية ده markii uu budgetka soo gudbinayay miisaaniyada afar su'aalood baa la weydiiyay wax la taaban karo wasiir waxaan ku weydiinaynaa budgetka kuma jirto saldhigii berbera waxaynu siisanay kharash uu leeyahay wasiir waxaan ku weydiinay dekadii sanadka iyo 8 bilood gacanta lagu hayay budgetkeedii wax kagama jiraan wasiir waxaan ku weydiinay كردي لشيء يحبك كما تشران هل كي وحكي قلدني هنا صلاة كحرم الله وسيركم حكوا جوابي دين بالله ترى سبحان الله قرمين دين قاضني تكدين نذوقيد بين وريتني الصور سيسك كلية عين الله هين وأيدين تعيدنا ما هي وأي سعيد قاضت سبحان الله إذن الكذب عند الشريعة حرام وعند الأمراء كبيرة من الكبائر وحيونا لما حيسكو فوق صدي وحناذو ليابي هذا الكيو أف عربية أدوبا ومحمد أور الغرغاش ووسير كارمها تبدي إما تلي إماراتك أو هضية إما كيوتيوب كوكتشرا BBC da af Arabiga oo wareysanaysa ayaa ninba wuxuu ku leeyahay wuxuu u jeeday sidaas war muxuu u jeeday waa tan qoraalkiisii isagoo hadlaya oo afkiisii ay tahay oo live ah oo TV-ga ku jiray muxuu leeyahay ninkaas Soomaali weyn baanu aaminsanahay annagu wax Soomaaliland la yiraahdo marnaba cid kale ma nu hadal buu heshiiskaasi waxaanu la galnay dawladihii Soomaaliya oo saxeexay Somaliland arrimaha aanu la qabsanayna waa arrimo bani aadamnimo buu yiri subhanallah takadii berbera ayaa waxay noqotay mashruuc bani aadamnimo oo kartoon laynagu caawinayo sidoo ninkaasi sheegay wasiirka arrimaha dibadda rasuulku kaleey salaatu wassalaam isagoo ka warramaya beentu dhibaatada ay leedahay sida Bukhari Muslim ay wariyeen waxa uu yiri آية المنافق 3 منافق أنك الله يقال صدح سفو ليه إذا حدث كذب هديء ورمه بين بوشيغية أي أولي رسولك عليه الصلاة والسلام وإذا وعد أخلف هدو بلن قاضنا بلن كيوا كبح يا أبويلي رسولك عليه الصلاة والسلام وإذ اؤتمن هدي وحلقوا آمننا خان وخيامينيا أي رسولك عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله هدو ورما بين بوشيغيا هدو بلن قلوا كدب دعيا هدي وحلقوا آمننا وخيامينيا